dowladda boqortooyada Ingiriiska ayaa ku soo biirtay dowladaha Ruushka iyo Imaaraadka Carabta oo qorsheynaya in saldhigyo military ay ka samaystaan gudaha Somaliland. Xogayaha gaashaandhigga waddanka Britain Gavin Williamson oo toddobaadkii hore Somaliland ku yimi booqasho aan hore loo shaacin waxa uu kulan la qaatay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo la sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka u dhaxeeya Somaliland iyo Britain. Warbaahinta Daily Nation oo warkan aanu ka soo xiganay waxa ay sheegaysaa in safaaradda Somaliland ay ku leedahay dalka Kenya oo saxaafaddu wax ka weydiisay shiritaanka warka sheegaya in Britain ay waqtigan Somaliland ka dalbatay saldhig military oo ay ka samaysato xeebaheeda ay ka gaabsatay in arintaasi ay wax tibaaxa ka bixiso. hase ahaatee sida lagu sheegay warka safiirka Somaliland ee waddanka Kenya Ambassador Baashi Cawil Cumar waxa uu sheegay in Somaliland ay aad u soo dhaweynayso booqashada xogayaha gaashaandhigga ee waddanka Britain oo uu ku tilmaamay talaabo kor u sii qaadaysa xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeya Somaliland iyo Britain. Ambassador Baashi Cawil Cumar waxa uu sheegay in booqashada mas'uuliyiinta meeqaamkan ahi ay tilmaamayso in beesha caalamku ay si fiican u aqoonsatay muhiimadda istiraatiijiyadeed ee Somaliland. booqashadii xogayaha gaashaandhigga ee Britain ee Somaliland ayaa timi hal toddobaad kadib markii Britain ay sheegtay in ay u baahan tahay saldhigyo military oo ay ka samaysato daafaha adduunka kadib marka lagu guuleysto qorshaha Ingiriisku uu kaga baxayo midowga Yurub. wararka aanu helayna ayaa sheegaya in dowladda Ingiriisku ay Somaliland uga baahan tahay saldhig military oo ay ka dhisato gudaha waddankeeda gaar ahaan xeebta Saylac. talaabadanina waxa ay tilmaamaysaa in Britain ay ku soo biirtay wadamada Ruushka iyo Imaaraadka Carabta oo qorsheynaya in Somaliland ay ka samaystaan saldhigyo military oo ay ku ilaashadaan danahooda mandaqada Geeska Afrika.